sidee ku dhici kartaa ninkii kiristanka aflagaadeeyay in xabsiga lagu hubsado oo jeel lagu hayo iyadoo la leeyahay waa bilaa dambi kii nabigeena calayhi salaatu wasalaam aflagaadeeyna oo xorriska ka taxtaasho oo cid la hadlaysa caari jiray haddaad iskuullo wataan kolkolinaysaanna ninkii gaalooyana gaalnimada u diidi mayno ninkii naag noqonaya la fuulayana anagu u diidi mayno naagtii naag ku kaaftomaysana u diidi mayno nin walba wuxuu doonaa sameeyo laakiin xisaabta ilaahay un bay noo dambe cabdimaalik sheekh muuse coldoon waxa uu xidhan yahay muddo ka badan 171 maalmood waxaana uu xidhan yahay si sabab la'aan ah cabdimaalik sheekh muuse coldoon waxa ka hadlay culimo iyo caamo ehel iyo walaal Soomaali maxamed oo dhan xildhibaan madax ilaa mijo waa laga wada hadlay waxa jiray nacabyo badan iyo cadow badan oo isbahaystay oo coldoon si la yaab leh jeerka ugu sii haynaya bal saaxiibayaan intaan arrimo la yaab leh idin soo gudbin waxaan idin haynaa culimadii Soomaaliyeed oo ka hadashay xariga samafale cabdimaalik sheekh muuse coldoon oo ahaa isagu runtii mid sharci darro weyn isla markaana ummadda Soomaaliyeed oo dhan dulmiga tusay Soomaali dhexdeeda dulmiga ka jira waa ka coldoon lagu haystee saaxiibayaan intaan muuqaalka idin soo gudbin halkan waa kanaalka saxinta wararka dib aad ku cusub tahay ku soo biiro ka mid noqo boqolaalka kun ee qof ee sida joogtada ugu xiran kanaalka saxinta wararka sidoo kale si joogta u hela wararka iyo warbixinada bartaan soo gelino sidoo kale si coldoon aan u taageerno isla markaana codkeena meel dheer u gaaro muuqaalka la gareeya gaarsiiyay in ka badan 100 kun oo leega soo dhawaada saaxiibayaan dulmiga Soomaali ka dhex jira waxa uu noqday ka coldoon oo kale saaxiibayaal dulmiga Soomaali ka jira waxa farta ku fiiqay dulmiga coldoon lagu la kacay oo bulsho badan oo Soomaaliyeed ay ka gilgilatay isla markaana ay si weyn uga hadashay waxaan idin haynaa qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo ka hadlaya xariga samafale cabdimaalik sheekh muuse coldoon daawasho wanaagsan sidee ku dhici kartaa ninkii kiristanka aflagaadeeyay in xabsiga lagu hubsado oo jeel lagu hayo iyadoo la leeyahay waa bilaa dambi kii nabigeena calayhi salaatu wasalaam aflagaadeeyna oo xorriska ka taxtaasho oo cid la hadlaysa caari jiray dulmigaynu ka hadlaynaa dulmiga la isdulmiyo waxa uu weyn nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam oo la aflagaadeeyo wax laga sheego inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun nabigi ilaahay noo soo diray إن بدباديني أين هجيي أين هنونيني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نبي وحكم ذي المؤمنين تنفتوا ويري الله سبحانه وتعالى إن سعرنا أو مطورنا مقلي صلى الله عليه وسلم مريسا ما طورا أنت حالة دمحين قريس علمه كما إلا بالله هاوشا يوا هاول مدن إن قفك وحن ليمي قد لقد شرب nooc doona ha ahaado midabku doona ha sheegto meeshu doona ha joogo ilaahayna inta badan wuxuu u diraa rag ka adeegta dadka waxa la yimi oo ku dhadhaafiya hadduu doono nabi ha sheegto ama nabi ha canjiro ama nabi ha sawiro ama nabiga calayhi salaatu wasalaam ha aflagaadeeyo hawsha ilaahay wuxuu u diraa inta adduunka la joogo oo inuu maqallay oo indhaheena ku aragnay iyadoo laga adeeganayo oo nafta la weydaarinayo intaan waqtigiisuba sii dheeraanin sadarteed walaalayaal dad muslimiina oo masaajidooda leh oo manaabirtooda iyo eedaankoodu baxayo oo kitaabkoodu dhex yaallo oo nabigoodii raacsan oo ku maaragtay ay saliyaya sidee ku dhacaysaa ay ku imanaysaa in nabigoodii lagu dhex aflagaadeeyo oo wax laga sheego waa ayaan darrada maanta in haysato walaalayaal sadarteed walaalayaal waxayna la gudboon inaynu baraarugno oo xaaladda maanta aynu ku nool lahay iyo fikradaha laynoo soo waaridayo iyo kuwa inala midabka ah ee inala maaragtay afka ah ee haddana islaamnimada ka fog ee shaqaba ku lahayn inaynu iska qabanno haddii wax laga qaban waayo xukuumaddu wax ka qaban weydo dadka muslimiinta ah ee ehelka ah ee degan inay arrintaa wax ka qabtaan walaalayaal waa arrin habboon haddii maanta waxa laga yaabaa cid kale laga aflagaadayn lahaa in qofka markaa walaalayaal wax xun la mari lahaa sidee ku dhici kartaa ninkii kiristanka aflagaadeeyay in xabsiga lagu hubsado oo jeel lagu hayo iyadoo la leeyahay waa bilaa dambi kii nabigeena calayhi salaatu wasalaam aflagaadeeyna oo xorriska ka taxtaasho oo cid la hadlaysa caari jiray sidee ku dhici kartaa walaalayaal ay cadaala wa ay diin dhaqanka tilmaamay waxa si xuyo walaalayaal اللهم عليك بالظالمين
اللهم عليك بالظالمين ومن والاهم، وعلى رأسهم الولاية المتحدة الظالمة الفاجرة. اللهم أبطل ظلمهم هذا واجعل يا رب كيدهم في نحرهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. haddaad iskuullo dad wataan kolkolinaysaanna ninkii gaalooyana gaalnimada u diidi mayno, ninkii naag noqonaya la fuulayana anagu u diidi mayno, naagtii naag ku kaaftomaysana u diidi mayno. nin walba wuxuu doonaa sameeyo, laakiin xisaabta ilaahay un bay noo dambaysa. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alay wasalam. ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto waan salaamayaa. waxaan leeyahay ilaahay ummadda soomaalida islaamnimadeeda iyo soomaalinimadeeda intaba ilaahay ha u sugo. ilaahay gargaar baan u weydiinayaa soomaalida, ilaahay inuu gargaaro meel kastoo joogaan. waxaad mooddaa waddankeennu dhul ahaan ilaa laga bilaabo lowyacaddo ilaa aad ka gaadhaas kaambooni iyo kismaayo, waxa weeyaan waxaad mooddaa waddan lagu soo duulay, iyada oo layskaga dhigayo waddan saaxiib laleeyahay oo qolaba meel lagu ootay, hay-adan lagu soo fatihiyey. aad yaabayso markaas mujtamacani halkuu ku socdaa baad is leedahay. maxaa yeelay hay-adaha soo galay burburkii dabadeed ee yimiday waddankeenna oo aanu bixiyey maarataanayana seminaaro aan kala joogsi lahayn oo dadka nooc seminaarada loogu marayo 30 sano oon iminka joogno wixii 9 ka dambeeyey. ninkii hadla ee amaa wariye ah amaa samafale ee wanaagsanaa kolku wax ka hadlana waxa leeyahay maarataanay waa dawladdu duminayaa, dadku been ka sheegayaa, iskuulladu been ka sheegayaa. maanta imise iskuul baa ka furan Soomaaliya ama Somaliland baan raadee iyo jaamacado aan la ogeyn wax alla waxay faafin ciidan ogeyn oo ciidan ka fara badan. mid walba Itoobiya laga soo qaadanaya, Kenya laga soo qaadanaya, Uganda laga soo qaadanaya, meesha laga soo qaadanaya. waxa weeyaan qolo walba waxbay faafinaysaa. waxaan leeyahay anigu qadiyada aan u jeedaa maanta waxa weeye ninka la yiraahdo Coldoon Cabdimaalik Coldoon la yiraahdo, ilaahay maartay faraj qaba asiye waan u duceynayaa. waxa weeyaan madaxda Soomaaliyeed ee Hargeysa joogto waxaan ka codsanayaa ee madaxweynuhu ugu horeeyo ninka inay furaa ka qaado iska daayo. waxa uu sheegay wax khayr un baan ila muuqata. maxaa yeelay haddii meel wax la farlata lagu fiiqo waxaa jira lama dafiri karo. sadartii horta waxaan leeyahay in la Cabdimaalik waxaan leeyahay isaga waxa adiga ku filan ama jeel ku jir ama god lagu rido ama station lagu haysto, waxa ku filan adiga wal casri baa ku filan. wal casri innal insana lafi khusr illa alladhina aamanu wa amilus salihat. afartan nooc ee ilaahay ka soo reebay bin aadamka khasaaray ayaa maanta adiga ku asabir. maxaa ila afartaas iimaan iyo amal saalixa iyo xaq oo ay sheegaan oo ina ka cabsoonin ku kasto canaantamayay canaantiisa iyo dagaalkiisa aan ka cabsoonaynin oo xaq sheegaya. xaqaana dib baa ku soo gaaraysa qofka. nabigeeni baa lagu dhibayay, asxaabtiisa baa lagu laayay, maarataanay oo nafta laga qaaday. gabadha Soomaaliya loo jiray ugu horeyntiiba maartay Yamaneedda miskiinta ahayd ee rumaysay nabiga iyo odageedii Yaasir maxaa lagu dilay Camaar labadiisi waalid. Abi Jahl baa dilay oo labadiiba dilay isku daray. muxuu ku dilay? yaa Nabi Maxamed baa raacay buu ku dilay. ilaahay jannada igana hogaamiyay, Abi Jahlna naarta loo hogaamiyay. marka waxa la madaxdu qofku hadduu wax sheego u fiirsada waxa uu sheegayo. aan hadalka ninka waan dhageystay, hadalka madaxweynaha dawakiil inuu meesha waxba kuma arag, waa labadu waan maqlay. laakiin iskuuladu runtan sheegaanu nin waxaan ay ulaa u yaraan 45 sanadood inta cumrigeedu jiro tacliinu ma ka shaqeynayay. iskuul waliba waxa lagu dhigo isaga fatihi doona oo ardaysa soo saari doonta oo cadeyn doonta wixii loo dhigay iyaga sheegi doona ku faani doona. habaha degdegsanina
ameerikay ka sheegi doonaan, yurub bay ka sheegi doonaan, soomaaliya ka dhex sheegi doonaan. ardada lafteeda yaa macallimiinta meesha joogtaa waxay u dhigeen iyagaa sheegi doona. weel walba wixii lagu shubana uu fatahaa. weel walba wixii lagu shubo unba fatahaa. marka waxa weeyaan iskuulladan horta haddii la leeyahay maanta iskuulkan abaarso oo kale ee dad badan ay isku xiijinayaan, dee anigu waxaan la yaabanahay waxaa jira ninka ugu sarreeya maaragtay nimankan luudiinta la dhahdo dabada looga tago ee la guursado ee ragga ah, ninka ugu weyni waa ninka Maraykanka ee doorta xisbigiisa la dhahdo maaragtay gay ay doortaan madaxweynayaasha Maraykanka ee dimuqraadiyiinta ah sida Biden oo kale iyo Obama iyo ay doortaan weeyaan, milyaneero weeyaan. kaasi markaa yimiday Somaliland ee madaxtooyada lagu qaabilay ee beertii maxayga la geeyey ee meel walba lagu soo sawiray. yurub wadamada yurubka ee kristanka mamnuuc buu ka yahay. yaa marka haddaan sheegno oon idhaa war waxaas inagu muslim baan nahay inuu inoo yimaadana ma ahayn, inuu iskuullada inoo dhisana abaal guma qabno, annagaa iskuullada iska dhisanayna, annagaa tacliintada islaamiga ah iyo tayada maaragtay annagaa wadanna. maxaa qofka sheega loo qabsanayaa markaas? waxaan leeyahay madaxda Somaliland waxaan u sheegayaa madax waad u tihiin dadka muslimka ah ee diinta ilaalinaya. anigu wadaadada kuma darayo, yani iyagu dhuunigooda raacay ee maanta waxay sheegaana inaan wax dadka waxba taray ahayn anu ka hadli maayo. laakiin inaan kaasoo kale ee war maxaa xalqada looma kacay, ilaahay baa loo kacaa, waa cibaado, waa runtiis. xalqad la sulayo oo la kacaa oo calan leeyahay looma kacee, ilaahay baa loo kacaa, waquumuu lilaahi qaanitiin. marka waxa weeyaan anigu dowladda waxaan leeyahay ummad muslimaad xakuntaan, kitaabkaad mas'uul ka tihiin, qur'aanka, xadiiska rasuulkaad mas'uul ka tihiin, sunnihiisaad mas'uul ka tihiin. waa inaad ogaataan haddaad ku xidhaan sidii kacaankiiba naga haysatay iyo cid walba waxay tahay. waxaan u sheegaya xukuumadda ragga xukunka haya, waxaan u sheegaya khaasaan madaxweynaha Cumar ibn Khadaab oo aad garanaysaan ayaa khudbadeeyey, asxaabtii la hadlay. wuxuu yidhi haddaan khaldamo itoosiya buu yidhi. ninba xagga safka halka u dambaysay masaajidka ka kaco wuxuu yidhi cumarow haddaad khaldanto seeftaasaan kugu toosinaynaa buu yidhi. seeftaas intuu seeftii saa u taagay, seeftaasaan kugu toosinaynaa buu yidhi. cumar markaa rag baa waxaan ku yidhi amiirulmu'miniinkaad waxaa ku leedahay buu yidhi wardaaya buu yidhi. ilaahay baa mahadle ku seefta igu toosinaya ummadda ku daree daaya buu yidhi. madaxa saasaa laga rabaa. kolay hadday maaragtay wax khaladii jiro in la soosiyo oo la sheego oo iyaguna raalli ku noqdaan. marka waxa weeye taasina waxaan leeyahay, coldoonna waxaan leeyahay adigu xaq baad sheegtay, dhibaata kugu dhacday, sabir ogow. waayo qodobka ugu dambeeya waxa weeye watawaasow bisabri weeyaan, yani xaqi ay sheegeen dhibta ku soo gaadha way ku sabraan. haddii lagu xidhanayo ku sabir, ilaahay baa ku arkaya. haddii maaragtay lagu sii dayana ilaahay u shaqeeya iyo diintiisa, ilaahay baa kaa rabaya udcu ilaa sabiili rabbik. taasi waa taas. qolyahan suulka abaarsa la dhaa ka hadlayna waxaan leeyahay amaha idin wanaagsanaa mayd xumaadee halkiisa hadda waa ka idinku yaalla. laakiin ogaada wixii au yahay uunbuu xaqiiqada noqon doonaa akhirka. waxaad mudha ka goosataanna waade kolkaa waa yaad arki doontaan mudhaha aad ka goosataan. annaguse waxaan idin leenahay in waxii la sheegayo la iska beri yeelaayo waa daruuri. maantana Somaliland waxaan arkayaa waddan jaamacadiisu fataheen oo macallimiintu fatahday oo dadka maamulku fatahay. markaasaa naag Nigerian ayaa la doortay oo lagu soo doortay maamul tukiina cawlan oo yadna kiina laga keenay oo ilaahay baa waxay dhab aqoon ayaa la keenay leeyahay kuwana jimcida noo ah. wallahi laga yaabo dadkii wakaa hoteelada wada fadhiya ka baxay jaamacadaha Hargeysa wakaa suuqa la wada fadhiyo, Boorama wakaa suuqa la wada fadhiyo, Burco wakaa suuqa la wada fadhiyo, nin walbana mastered buu haystaa. maxaa idin diidana dadkiina shaqaaleysaan kolkaad doonanaysaan sangaluuda Kenya iyo kuwa Nigeria Kristanka iyo kuwa gayga maartaanay dad bari iyo maxaa idin diiday macallimiintiina oo jaamacadda soo saareen. anu maanta waxaan leeyahay ilaahay baan hor taaganahay, ninkii madaxo ilaahay ka cabso, ilaahay ka cabso. waddanka waxaad u keenaysaanna
fiiriya sax ma yahay mise sax maaha waxaase durbaba muuqata dad badanoo iskuulka wax ka dhigtay inay durbab meediha soo galeen wax ka badanna way soo gali doonaan way isdaba socon doonaan haba degdegina intaas ayaanu markaa u dirayaa maaragtay yana ummadda waxaan leeyahay ninka coldoonna iska sii daaya haddaad madaxa tihiin waddankana dawaan u ducaynana waxaan leenahay ilaahay waddanka nabadgelyo iyo khayr ilaahay noogu soo